yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ugu sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa kulamo kala duwan la qaatay cuqaasha waxgaradka odayaasha iyo nin garboodka beerihii ku diriray koonfurta gobolka Sool waxaana uu kulanka wasiirka ku wehelinayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland wasiiru dawlaha madaxtooyada Salaadiin iyo guddiga culimaa u diinka gobolka Sool kulankan oo warbaahintu dibadjoog ka ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa saxaafadda uga warbixiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo sidoo kale Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed waxayna ka dhawaajiyeen inay meel wacan marayso hawlihii nabadeynta koonfurta gobolka Sool wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa digniin u diray cid kasta oo doonaysa inay nabadda carqaladayso waxaana uu ka dhawaajiyay inay gacan bir ah ku qaban doonaan shakhsiyaadkaasi haddana ay xidhan yihiin dad iyagu loo soo qabtay hawlaha nabadgelyo darrada hawsha ka qayb qaadan lahaa qaarkood oo naga kala maqmaqan iyo daraadeed iyo xogaa dib aan u hakanay oo dib dhacayna nagu yimi kuwaasuna insha Allah waa noo dhamaanayaan dhaqsaan u bilaabaynaa labadii reerba si wanaagsan baan u aragnay in allaaliya intiin nabaddu aan isleenahay way ku xirmaysay ama waan looga maarmayn waanu ka qaadnay wacad iyo ballan iyo baalkiyo waanu haynaa waxa jira dad aanu xidhnay oo xabsi ku jira oo labada beelood ka tirsan arrintaasna waa arrin aanu nabadda ku bislaynayno fadqalalada ku xakameynayno kuna soo dhaweynayno sidii dadku ay u degi lahaayeen halkan waxaan ku fadhinaa xukuumaddii iyo madax dhaqameedyadii iyo culimaa u diinkii dhexdhexaadinta ka waday labada beelood oo koonfurta Sool sida uu wasiirku sheegayna meel aad u wanaagsan bay hadda noo maraysaa maanta waxaan oran karnaa ergooyinkii dhexdhexaadinta sameynayay iyo xukuumaddii oo wada socda iyo labadii beelood oo dood badan iyo hadal badan ka bacdi aqbalay inaanu arrintii gudagallo shuruud la'aan arrintaas meel fiican bay noo maraysaa ilaahay waxaan ka baryaynaa intiina fadqalalayn jirtay iyo intii waxyaalihii hore banjarin jirtay inuu ilaahay naga qabto annagana ilaahay daacad nooga dhigo hawshaasna rajo aad u wanaagsan baan ka qabnaa maalmaha soo socdana waxaan rajaynaynaa inuu shirku noo furmo sida wasiirka iyo suldaankuba u sheegeen hawshan aynu ku jirna meel wanaagsanna way noo maraysaa waxa qura ee noo hadhay waxa waa dheedkii iyo maalintii oo si dhaqso ah aanu iyadana u qabanay oo la iman doono marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu arrintaasi si khayr qabta inoogu dhameeyo Samiir Saciid bila Bulsha TV Laascaanood